Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to our YouTube channel Osman Banjar for studying the English language. Brothers and sisters, kusoo dhawaada channelkeena Osman Banjar barashada luqadda English-ka oo anigoo ah Osman Banjar aan halka kan idinkaga soo gudbinayo. Maanta sida caadada inoo ahayd waxaan qaadanaynaa two questions, laba su'aal ka hor inta aan guda galin cashirkeeni 9 labada su'aal aan ku weydiinayo waxa weeyaan number 1 su'aasha ugu horeysa waxaan ku weydiinayaa inaad soo qortid macalinkeyga. Okay, macalinkeyga inaad soo qortid tan koowaad, tan labaad macalinkeeda oo ayada macalinkeeda inaad soo qortid. Okay, labadaas waa isla fahmnay. Haddii aan mar labadaas isla fahmnay kadib maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeeni 9 waxaan u maleynayaa inaan isla socono. cashirkeeni 9 waxaan ku qaadanaynaa xarafka ama erayga loo yaqaan this markaad ku dhawaaqaysid the ugu dhawaaqay th tan waxaad ugu dhawaaqaysaa the oo kale the oo waxaa leedahay this. hore waxaan soo arki jirnay th oo aan ugu dhawaaqayno tha, laakiin eraygan hadda waxaan ku dhawaaqaynaa this waa kan. This waxaa lagu fasiraa kan. This waxaa loo isticmaalaa shay ku dhow ama fikir ahaan wax ku dhow. This idea fikradan ama this shaygan. Okay, this aan maanta qaadanaynaa marka 4 ayaan ka qaadanaynaa jumladood ila soco. This horta mar walba waxaa raaca is. This is this is. Okay, this is markaad caadi jumlad aga dhigi rabtid. Okay, is ayaan ku darinaa. Laakiin this idea ama this person oo kale markaa leedahay is uma baahna markaas. laakiin hadda markaa jumlad caadi isticmaalayna is ayaan ku dareynaa anagoo this caadiga aan baranayna. This is ayaan baranayna marka. This kani is waa. Is ta marka waxaad ku fasiray waa. This kani is waa my brother walaalkay. This is my brother kani waa walaalkay. This is my brother kani waa walaalkay. This is my brother kani waa walaalkay. This kani is waa my brother walaalkay. This is my brother kani waa walaalkay. My horan kugu soo sharxay waa wixayga. My brother walaalkay. Brother madis. Brother ale my brother walaalkay. This is my brother kani waa walaalkay. Okay, waxaan guda galaynaa jumlada kale oo ah this tani is waa my sister walaashay. This is my sister tani waa walaashay. way ku dhowdahay markaas aad tilmaamaysid this is my sister. Okay, this is my sister hal shay bas aad isticmaalaysaa ama hal shay oo kaliya ayaad tilmaamaysaa markaad this is isticmaalaysid. Okay, this is kani waa. Okay, this is kani waa my father aabahay. This is my father kani waa aabahay. Okay, jumlada kale this is my mother tani waa hooyaday. This is my mother tani waa hooyaday. marka afartan jumladood waa fahmnay oo kala ah this is my brother kani waa walaalkay. This is my sister tani waa walaashay. This is my father kani waa aabahay iyo this is my mother tani waa hooyaday. Okay, intaas waa isla fahmna marka. waxaan u baahanaa marka questions and answers about this. su'aalo iyo jawaabo oo ku saabsan this kan. Okay, aan guda galna marka. tusaalaan su'aala lagu weydiin karaa waxaa lagu dhihi karaa asagoo qofku la socda waxaa lagu dhihi karaa who is this? waa kuma qofkan. Who waa kuma. Who kuma weeyaan. Okay,
who markii lagu dhahayo qof ayaa lagu weydiinayaa oo ibni aadam ah. laakiin what markii lagu dhaho shay ayaa lagu weydiinayaa. Okay, who is this? waa kuma qofkan. Who is waa kuma this qofkan. markaas waxaan leedahay this kani is waa my son wiilkayga. this kani is waa my brother walaalkay. qofka markaa kula socdo oo lagu weydiiyo aad aga jawaabi kartaa. Okay, who is this waa kuma. who is this waa kuma qofkan. marka who waa kuma. is this istia markaan soo hormarta fiiri. ista hadday thista gadaasheeda timaad, ista hadday thista kasoo gadaal marto, waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa waa su'aal. hadday thista ay ugu dambeyso. Okay, who is waa kuma. this kani is waa my son wiilkayga. this is my son kani waa wiilkayga. Okay, markaasaa su'aala lagu weydiiyey marka kan wiilkaaga miya oo kale istale banaanka loo soo bixinaa marka. this is my son sooma dhihin. qofka markuu wuxuu rabaa inuu ka hubsado hadalka aad dhahdo tusaalehaan istaa banaanka kusoo bixinaya. waxaad leedahay is this your son. my aad dhahdo sooma son wiilkayga. Okay, is this kani ma yahay your son wiilkaaga. your horaan usoo baranay oo ah waxaaga ama wixiina. Okay, is this kani ma yahay your son wiilkaaga ma yahay. is this your son kan wiilkaaga ma yahay. question maaga saare ha ka hilmaamin markaad su'aal qof weydiinaysid calaamata su'aal inaad saartid. Okay, is this your son kan wiilkaaga ma yahay. hadday haataa waxaa dhahaysa yes ha. yes ha. this kani is waa isaga. ama yes ha wiilkaaga waa lab. waxaad ka soo qaadanaysaa he oo magacyaalihii aan soo baranayna oo waxaa leedahay yes ha he isagu is waa wiilkayga waa short form. he is. yes he is. ha isaga waa wiilkayga u taagantahay. ama jumladu waa dhammaystiri kartaa. waxaad dhigi kartaa yes ha he is my son. isaga waa wiilkayga. ama haddaad waxaad dhigi kartaa yes ha this kani is waa my son wiilkayga. marka thista waxaa ka maaransii karta inaad isticmaashid pronounka ama magacyaalaha ah he aan horey usoo baranay. oo waxaa leedahay he is my son. isaga waa wiilkayga. intaas waa isla fahmnay. haddaan ku celiyo who is this waa kuma qofka kani. Okay, this is my son kani waa wiilkayga. is taa banaanka loo soo bixiyo waxaa lagu yiri is this your son. is this your son kan wiilkaaga miya. yes ha this kani is waa my son wiilkayga. intaas waa isla fahmnay. Okay, casharkeeni maanta halkaas ayuu noogu egyahay. casharkeeni 19 halkaas ayuu noogu egyahay. waa anigoo ah teacher Osman Abdulqaadir Banjar. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.